moogtahay inuu ugu dambeyntii la shaaciyey qofka ku guuleystay abaalmarinta Nopel Peace Prize hadda sanadka 2025 Maria Corina Machado oo ka soo jeeda dalka Venezuela ayaa ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nopel. waxay caan ku tahay halgankeeda joogtada ee ku aadan xuquuqda dimuqraadiyadda iyo ka hortagga keligitalisnimada dalka Venezuela, taasoo ka dhigtay astaan caalamiya oo geesinimo. dhanka kale Donald Trump ayaa la sheegayay inuu doonayay inuu ku guuleysto abaalmarinta Nopel Peace Prize sanadkan, balse uu la waayay fursadan, halka Maria Corina Machado ay noqotay qofka u xaq leh abaalmarintan. Maria Corina waa hogaamiyaha mucaaridka oo codka shacabka ka dhigay mid la maqlo xitaa markuu nidaamku isku dayay inuu caburiyo. halgankeeda iyo geesinimadeedu waxay tusaale u tahay sida hal qof uu bedeli karo mustaqbalka dalka iyo dadka. abaalmarinta Nobelka nabadda waxaa la socda 12 milyan oo crown oo qiyaastii u dhigma 1.2 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana lagu guddoonsiin doonaa magaalada Oslo ee dalka Norway 10 Disembar sanada 2025. qof walba oo u halgama dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha waxaa lagu dhiirigeliyaa abaalmarintan la mid ah oo lagu maamuusiyo geesinimadooda. Maria Corina Machado waxay noqotay astaan u taagan rajo, geesinimo iyo awoodda shacabka, iyadoo muujisay in hal qof uu dhab ahaantii bedeli karo dunida. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, abaalmarintan ay ku guuleysatay sidee ayaad u aragtaa? sima tahay mid ay u qalanto? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg fikirkaaga. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.